rasiidka indhaha bishaan intaanoo isticmaasho indha aragti lacagta soo boodbood ama mataqaana intaan dhaga isticmaashay maqal isticmaashay lacagta soo boodbood ama caqli. caaisha radiallahu canha waxay nebiga ku tiri bal haddaan haleela habeenka leylatul qadriga maxaa dhahaa rasuulka ilaahow markaasuu nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi waxaa dhahdaa allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna. habeenkaas guusha loo kala fakanayo waxaa furo u ah ducadan waana habeenkii aan wada naqaanay waa habeenkii ka khayrka badnaa 83 sano iyo 4 bilood halka camal aa suubiso waxay la mid tahay adoo 83 sano iyo bilooyin suubinaya yacni haddaa jus qur-aana akhriso waa adoo intaasoo sano 83 sano iyo dheeraad hal jusoo qur-aana habeen kasta akhri jirta marka aan u soo laabana ducadan saan u weyn micnaheeda maxaa waaye haddaba waxay ku bilaabanaysaa allaahumma oo micnaheedu yahay ilaahow shay markaa uu ceeso ama qof markaa uu ceeso waa lagama maarmaan inuu ku dhow yahay saa wax kaa fog looma wacdo sababto ah kuma maqlaayaan sooma saas darteed kow horta waa inaad dareentaa aamintaana inuu ilaahay subxaanahu watacaala kuu dhow yahay kuna maqlaayo welibana kuu jawaabayo waxaa ka codsatidna ka helaysid adduun ama aakhiro marka dareen markaa allaahumma dhehaysid inaa ilaahay wacanoosid waxaa ku xigto innaka cafuwun haddaba saa wada ogsoonahay ilaah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay magacyo badan laakiin habeenkaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam ducaduuna baray waxaa 3 mar ku dhowaad ku jirto magaca ilaahay oo cafuw marka habeenkan waa habeenkii cafiga magaca cafuw micnihiisa luqad ahaan waxaa ka mid ah tirtirid carabtu waxay dhahdaa cafat riix al aathaar ay idaa maxataha wa asaalatha dabeesha waxay tirtirtay raadka yacni micnaha raad meel ku yaal hadday dabeel ku timaado waa tirtire micno ahaan marka waa inuu ilaah subxaanahu watacaala uu kuu qalleeyo dembigaagii lagaana tirtiro kadibna ilaah kaa raali noqdo kadibna waxaa rabta ku siiya su-aal la-aan qaybta saddexaad waxay leedahay tuxibu alcafwa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay inuu addoommadiisa ku caabudaan oo ku baryaan magacyadiisa iskuna dayaan inay ku sifoobaan maalmahan barakaysan waxaa dadka la gudboon inay iscafiyaan micnaha ilaahu wadaa cafuu cafiskana jecel ee inoo qalleey addoon qaldamaan nahee halkaas markay mare adiga in lagu cafiyaa rabtaa adigana iska cafi dadka wax kaa haleehe hadda ka hor baa 3 culummo isla fadhiisatay waxay dhaheen ilaahayaan baryaynaa kii koowaad baa wuxuu yidhi ilaahow adaana amartay inaa cafino qofkiina dulmiyo annaka nafteenna dulmine ilaahowna cafi kii labaadna wuxuu dhahayay ilaahow adaana tiri masaakiinta dee albaabka kuu soo garaacaan ha burnina ilaahow masaakiinan ha albaabkaadaana taaganaha ilaahow hana burin noo naxariiso kii saddexaadna wuxuu yidhi ilaahow adaa tiri xoreeya addoommadiina ilaahow addoommadaadaan nahe ilaahow naartaada naga xoray facfu cannaa ugu dambayso facfu cannaa waa na cafi yaa rab cafwiga naftarkiisa wuxuu u qaybsamaa 3 nooc cafis jirka ku jiro inuu ilaaha subxaanahu watacaala jiro kaa haayo haddaa jiran tahayna ku caafiyo cafis diinta ku jiro inuu ilaahay khayrka iyo cibaadadiisa dhammaan acmaasha wanaagsan ku waafajiyo cafiska dayaanka yacni inuu ilaahay ku cafiyo kuna naxariisto marka ducadaanu isku duuban waa 2 qayb qaybta koowaad ammaanta ilaahay allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa aadaabta ducada ilaahay waxaa ka mid ah in lagu bilaabo ammaanta iyo mahadda ilaahay nabiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi laa axada axabba ilayhi almadxu min allah yacni ma jiro qof ammaanta ilaah ka jecel ilaah inaa la ammaano waa mudan yahay raadka naxariistiisa iyo fadligiisa waa naga wada muuqdaan nicmo kasta oo haysanno ilaahaana siiye nicmo aan isqabqabsi iyo isjiidjiid lahayn bal fiiri weligaa ma aragtay biilka billaha ama sanadlaha ee indhahaaga ama ka maqalkaaga ama ka neefta kuu soo dhac weliga allaha rasiidka indhaha bishaan intaanoo isticmaasho indha aragti lacagta soo boodbood ama mataqaana intaan dhaga isticmaashay maqal isticmaashay lacagta soo boodbood ama caqli ama maba koobi kartidba nicmooyinka ilaahay wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha intaasuu ilaahay naga waafajiyey inaa idinla qaybsano micnaha ducadan aadka u qiimaha badan ee habeenkan 83 sano iyo jarjarka kasii badan kasii khayrka badan waa hal habeen oo hal bog oo quraan haddaa akhriso u dhigmo intaasoo sano inaa quraan akhrinaysa camal habeen kastoo ka mid ah
faa'iidaysi wacan habeenkan. Like haddaa barnaamijkan ka faa'iiday, asxaabtaadana la wadaag, ayagana waa intaasi ka faa'iidaan. Subscribe channelka.